السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفت بدن ku xiran janalkeena injineer Nuur Abdulkaadir. Akhyaarta nagu soo biirtay waaba nagu soo biirtay, akhyaarta cusubna ha nagu soo biiraan janalka subscribe noo saara, meel sare na gaarsiiya. Janalkeena weli waa maxaa la dhahay, waa iska cusub yahay, subscribe yar uu leeyahay, marka subscribe-kiisa aan badino, views-kana aan badino. Marka akhyaarta soo dhawaada insha Allah. Maanta halkan waxaa kusoo bandhigaynaa blogging Google AdSense. Wax badan ka ogow blogging Google AdSense ayaan ka hadlaynaa. Blogging Google AdSense waa wax ku qoridda Google AdSense waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu kasbado waxa jira oo loo abuuro dakhli dad badan. Halkan waxa hagay degdeg ah si aad u bilowdo. Marka qodobaan kuu sheegi doonaa. Qodob koowaad horta waa dooro niche-kaaga. Xamaasad vs faa'iido. Dooro mowduuc aad xiiseynayso, laakiin sidoo kale tixgeli faa'iidada ay leedahay. Niche-ka caanka ah waxaa ka mid ah dhaqaalaha, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo safarka. Cilmi baaris adeegso aaladaha sida Google Trends si aad u qiimeyso xiisadaha iyo tartanka. Marka niche-kan markaad dooranaysid waxaad ku fiican tahay, waxaad taqaano inaad doorataa ku fiican. Wax adiga aad jeceshahay, waxaad ku fiican tahay, waxaad aqoon u leedahay, waxaad xiiseynayso camal baa fiican niche-ka aad dooranaysid inaad ka dooratid. Qodobka labaad, samee bloggaaga. Platform dooro, goob wax lagu qoro, WordPress, Blogger iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa inaad ka samaysato bloggaaga WordPress maxaa yeelay wuxuu kuu fududeynayaa, wuxuuna leeyahay plugins magaca domain. Dooro domain soo jiidasho leh, magaca ku habboon oo ka turjumaya niche-kaaga. Martigelinta la isku halayn karo si aad u hubiso bloggaagu si habsami leh u soco. Hosting fiican u raadi waa qodobkaas. Abuur waxyaabo tayo leh. Abuur qoraalada qiimaha driven, qor macluumaad soo jiidasho leh iyo nuxur asal ah oo qiime siiya akhristayaashaada. Kordhinta SEO. Adeegso ereyada muhiimka ah ee khuseeya calaamadaha meta iyo qaabeynta habboon si kor loogu qaado muuqaalka mashiinka raadinta. Search engine-ka waa inaad isticmaashaa joogteyn. Sameyso jadwal qoraal ah oo joogto ah si aad dhageystayaashaada ugu mashquuliso. Qodobka afraad, codso Google AdSense. U qalmitaanka. Hubi in bloggaagu u hogaansamo siyaasadaha AdSense. Waxyaabaha asalka ah ma jiraan, wax qaangaar ah iyo wixii la mid ah. Nidaamka codsiga. Iska diiwaangeli AdSense account ka sameyso oo ku xidh bloggaaga. Waxaad u baahan doontaa inaad xaqiijiso lahaanshahaaga bogga. Qodobka shanaad, hagaaji meelaynta xayeysiiska. Qaababka xayeysiiska. Tijaabi qaabab xayeysiis oo kala duwan. Qoraal, bandhig, jawaab si aad u aragto waxa sida ugu fiican uu u shaqeeyo. Dhig xayeysiisyada meelaha laga arki karo laakiin aan faragelin lahayn. Meelaynta caadiga ah waxaa ka mid ah korka, laalaabyada, waxa ku jira iyo bar side. Qodobka lixaad, falanqee waxqabadka. Falanqaynta. Isticmaal Google Analytics si aad ula socoto traffic-da, dhaqanka isticmaalaha iyo waxqabadka xayeysiiska. Hagaajin xeeladaha iyada oo ku saleysan natiijooyinkaaga. Nadiifi waxa ku jira iyo
meeleynta xayeysiiska si aad sare ugu qaaddo dakhliga. Qodobka 7 kobci dhegeystayaashaada. Warbaahinta bulshada kor u qaad bloggaaga aaladaha sida Facebook, Twitter iyo Instagram si aad u hesho macaamiil badan. Suuqgeynta emailka. Dhis liiska emailka si aad akhristayaasha ula socodsiiso oo ugu hawlgalaan. Ka jawaab faallooyinka oo la falgal dhegeystayaashaada si aad u dhisto bulsho. Qodobka 8 ugu dambeeya, raac hab-dhaqannada ugu wanaagsan. Cusboonaysii la soco siyaasadaha Google AdSense iyo dhaqamada ugu wanaagsan si looga fogaado arrimaha xisaabta. Barashada joogtada ah. Akhri blogyada, ka qaybgal webinars oo ka qaybgal golayaasha si aad u horumariso blogging iyo xirfadaha lacag ka samaynta internetka. Gabagabo, ku guuleysiga Google AdSense waxay qaadataa waqti iyo dadaal, laakiin wehelanaanta tayada iyo kobaca dhegeystaha waxay noqon kartaa hab abaalmarin ah oo lagu kasbado dakhliga bloggaaga. U samir sii wad waxbarashada oo ku raaxayso safarka. Qodobkeena halkaasaan kusoo koobaynaa. Akhyaarta sharafta badan, haddii halkan aan la soo gaartay aadan weli subscribe noo saarin, channelkeena subscribe noo saar. Wixii comment waxaad fahmi weysaan comment noogu soo dira, like na noo saara si muuqaalkeena meel sare u gaaro. Soo dhawaada.